mid ka mid ah kuwii ugu xumaa hadduusan baahayn kii ugu xumaa ee dunida soo mara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadedi lahaantiinba halkaad naga daawanaysaan waa Maysar Cabdi. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Maxaad ka ogtay sanadkii ugu nolosha xumaa ee caalamka soo maray? Sanadku markuu ahaa 536 daruur ayaa iftiinka qorraxda qarinaysay muddo 18 bilood ah. Haddii ay kula tahay in waqtigan lagu jiro xilliyo adag, bal dhankan ka fiiri. Arrimaha xaaladdu sidan aad bay uga xumaan lahayd haddii aan ku jirno sanadkii 536 sida laga soo xigtay taariikhyahankan jaamacadda Harvard ee lagu magacaabo Michael McCormick. Wuxuu waqtigaas ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa hadduusan baahayn kii ugu xumaa ee dunida soo mara ee lagu noolaado meelo ka mid ah caalamka. Ceryaamo aan la garanayn sababta ay ku timid ayaa u beddeshay Yurub, Bariga Dhexe iyo qaybo kale oo ka mid ah qaaradda Aasiya. Mugdi maalin iyo habeena ayaa muddo 18 bilood ah lagu jiray, sida uu McCormick uu ku qoray maqaal lagu daabacay wargeyska ka soo baxa faallooyinka sayniska. Heerkulka xilliga kulaylaha ee sanadka 536 waxa uu hoos uga dhacay 1.5 digrii 2.5 digrii, taasoo sababtay inay noqoto 10kii sano ee uu heerkulku ugu hooseeyay uguna qaboobaa ee dunidan korkeeda soo maray. Baraf ayaa ku daayay xilli kulaylaha Shiinaha, dalagyadii beeruhu way baabi'een, dadkuna aad iyo aad bay u gaajoodeen. Xarunta taariikhda ee Irish waxa ay diiwaan gelisay sanadkii ugu cunto la'aanta yare. Cunto la'aan ba'an oo jirtay sanadadii intii u dhaxaysay 536 ilaa 539. Kadib sanadkii 541 waxaa dilaacay cudur lagu magacaabo cudurka loo yaqaano bubonic oo ka dhashay bakteeriya ayaa ka dilaacday boqortooyadii ay Roomaanka ku lahaayeen dalka. Intaas waxay noogu eeg sidii ay caalamka ugu xumayd ama sanadkii ugu xumaa caalamka ee soo mara. Intaanu ku kulmayno muuqaalka xiga. وأنا نور عبد النور في أمان الله. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. في ساحة